السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga dhammaan waa idin salaamay meel kastoo dunida ka joogtiin. Kusoo dhawaada cashirkeennii oo isbuucii horeeto aan idin dhahay insha allahu tacaala waan bilaabo doonaa oo sida kalimaadka la iskugu xira ama muxuu ahay quraanka loo kiciyo oo la iskugu xiro kelmadaha carabiga ah. Marka walaalayaal waxay ka anfacayaan kelmadahan quraanka sida loo kiciyo ee cunugaaga ka anfacayaan. Marka walaal iyo qof walba oo rabto quraanka inay kiciso oo kaligeed akhrisato aad ayay muhiim u yihiin. Hadaad yacni aad maaragtay aad ku celcelisid cunugaaga ama muxuu ahay aad u fiirsiisid oo arko oo muxuu ahay adigana aad kula dadaashid sida uu akhri lahay insha Allah tacaala uu fududaa doona cunugaaga kitaabka inuu quraanka ka akhriyo haduu Ilaahay yiraahdo. Anigoona insha Allah tacaala kitaabkan cashiro badan aan ka qaadi doonin laakiin wax yar oo muxuu ahay muhiim ah aan ka soo qaado doono oo hadhowtiin anfacaad insha Allah tacaala kuule. Adigana hadaa buugaan haysatid cunugaaga muxuu ahay maalin walba ayaad dhihi kartaa hooyo akhri hooyo ku celi waxa waa maasha Allah wuu ku baranayaa. Hadduu kitaabkan kuu dhameeyo cunugaagu mar walba akhriyo quraanka kaligiisa sa akhrisanaa. Marka walaalayaal hadalka in ku badinin waan bilaabaynaa insha Allah. Waa kana caawo waxaan insha Allah tacaala akhrisan doonaa alif iyo ba iyo ta iyo tha iyo jim sida la iskugu xiro xarfaha. waad ku dhawaaqaysaa xaraf walbaan ku dhawaaqayaa kadibna waa isku xirayaa. Marka waxaan leenahay akhadha sa'ala ذرأ بسط عبد كتب ترك. ujeedina walaalayaal waxaa waaye dhawaaqaas muhiim waaye like xarafkii iyo xarafka kale u geynaysid oo ku qabanaysid waxaa waaye aaday u anfacaysaa ilmahaaga insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. fataha bahata thalaba مثلا بحث جعل سجد عرج. marka walaalayaal xarfahan dhan ilaa iyo jim waa arkaysaa meel walba uga jira. Waxa waaye alifkii waa kana mar asigoo muxuu ahay halka uga jiro mar asigoo dhaxda uga jiro mar asigoo ugu dambeynta ku jiro akaasa mar walba marna asigoo dhinacaas ku jiro. waa kana hadana ba'dii saasaad ku kala fahmaysaa. wata hadana ta'dii hadana tha'dii hadana jimkii sida يعني meel walba xarafku ka dhaxgalaayo xarfaha kale lagu xiraayo lagu tusinayaa. waa kaasa عرج. marka walaalayaal ka kalan ku xiji doonaa insha Allah page wax yar oo kale kan ayaan ku xijisanaynaa. hadana waxa waa ha iyo kha iyo daal iyo daal iyo ra. marka waxaad leedahay ku dhawaaqaysa hamada lahama fataha khala'a bakha'a salakha دمع صدم
فسد فسد ذكر كذب كذب نبد رفع عرض عصر. marka walaalayaal waa kaasa haddana beejkan mar walba waxaa lagugu dhigay tusaalo. hadda xa'dan oo kaleeto inta meelood ayay ka gelaysaa lagu tusinayaa. xa'da markay ugu horeyso waa tanaa miimkaa lagu xiray, haddana daalka, kadib haddana to dhaxday ka gashay, labadan xaraf dhaxday ka gashay, haddana xa'dii, haddana ayada ugu dambeysa waa taasaa. marka kan haddana waa lamid kha'da daalka saas yacni aa lagu tusinayaa sida iskugu xirmaan quraanka ama xarfaha iskugu xirmo markaa quraanka akhrinaysa. exactly waa sidaan oo kale, like haba ahaata xarfihii iyo kelmadihii baa kala bedelnaadaane quraankii sidaana la isugu qabanayaa. marka cunugii markaas saan uga dhistid hadhowti kitaabkaa tartiib u tusinaysaa xarfihii oo dhan iyo sidii isugu xirmayaan hadhowtin cunuga. insha allah haddaa ku dadaashid insha allah wuu ka najixi doonaa biidni illah. ilaahayna ha inku najixiyo, ilaahayna ha ida karsiiyo, dhammaanteena hana karsiiyo, ilaahay ha noo fududeeyo biidni illah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.